واتهاي صاحبada aynu hawada ku saaxiibnayo ku soo dhawaada muuqaalka xiga ee channelka Kuus Yaro Visual waa saaxiibkiin aadka idin jeclaa aadkuna idin ku xiisay ee Maxamed Arki insha Allah waxaynu daalcan doonaa sheekooyinkii guusha ee dhiirigelinta lahaa anagoo u wadi doonaa si xalqa insha Allah xalqada maanta inuu qaadan doono waxaynu soo qaban doonaa midka ugu horeeya sheekooyinkii guusha lahaa iyo dhiirigelinta intaba daawasho wacan watahay ku soo dhawaada mar labaad sheekadii guusha ee Morgan Freeman sababta dad badani ugu aaminsan yihiin fikir qaldan guusha waa iyagoo arka uun natiijada ugu dambaysa ee shaqo adag oo uu qofka soo qabtay isla markaana u maleeya inay nasiib ahayd weli ma maqashay sheekada nin la yidhaahdo Morgan Freeman haddii aad wax badan daawato filimada Hollywoodka waxaa laga yaabaa inaad ogtahay inuu ka mid yahay aktarada Hollywoodka loogu tixgelinta badan yahay ee ku guuleystay marar badan biladaha filimada ee loo yaqaan Oscar Prize taasi waa waxay dhab ahaan ka yaqaanaan dadku aktarkani aadka u yaqaan balse wax fikrad ah ma ka haystaan halgankii uu soo maray ka hor inta aanu noqon aktarkan caan oo uu guulo waaweyn ka gaadhay filimada Bollywoodka sheekadii Morgan Freeman wuxuu ku dhashay dalka Mareykanka taariikhdu markay ahayd 1937 waqtigaasi oo ku beegnaa waqtigii midabta korka lagu hayay dalka madoobi oo uu aad u xoognaa iyadoo ay ugu wacan tahay dhibaatadan iyo cadaadiska midabta korka qoyskiisii waxay go'aansadeen inay u guuraan meel kale si ay u helaan nolol ka fiican tan waqtiga ka jirtay dalkooda Morgan wuxuu jeclaa inuu noqdo aktar lacagtiisa iyo waqtigiisa inta ugu badan wuxuu ku bixin jiray si uu u daawado aflaanta marar badan waxa uu isku dayay inuu noqdo aktar balse kuma guuleysan isagu waqti aad u dheer kadibna wuxuu is arkay isagoo duuliye ama pilot ka ah diyaaradaha militariga waqti kadib in uu daba socdo oo aanu ka hadhin sidii uu aktar u noqon lahaa Morgan da'diisu waxay gaadhay 54 ama 45 jir ugu dambeyn Morgan waa uu guuleystay markii ay da'diisu gaadhay 50 sano jir watahay saaxiibadu aynu hawada ku saaxiibnayo halkaasi waxaan ku soo afmeerayaa halqadii koowaad ee sheekadii guusha ka dambeysay aynu ku eegaynay ninka ama aktarka caanka ee loo yaqaan Morgan Freeman waa saaxiibkiin Maxamed Arki oo idin dhahaya inta aynu barnaamij caynkan oo kala kulmi doono haddii aadan ahayn qoraa anfaca bulshada fadlan noqo akhrista anfaca nafsadiisa mahadsanid